kulankan wada tashiga farsamada waxbarashada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ee lagu soo gabagabay magaalada Beledweyne ayaa ka socday magaalada muddo 2 maalmood ah kaas oo looga hadlayay dardargelinta farsamada waxbarashada iyo sidoo kale guud ahaan horumarinta waxbarashada deegaanada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle waxa ka qayb galay kulankan wada tashiga farsamada waxbarashada dawlad goboleedka Hirshabeelle ee lagu soo gabagabay magaalada Beledweyne guddoonka waxbarashada iyo sidoo kale dhammaan bahda waxbarashada gobolka kaas oo looga wada hadlay muddadii uu socday dardargelinta farsamada waxbarashada iyo guud ahaanba horumarinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee dawlad goboleedka Hirshabeelle Amiin Mukhtaar Axmed ayaa si kooban faahfaahin uga bixiyay kulankan iyo muddadii socday iyo sidoo kale waxyaabihii looga hadlay sidii loo tayin lahay iskuulada iyo dhammaan waxbarashada oo researchna aan ka sameyn doono waxaan sidoo kale ka hadli doonaa female ratio in a teacher yani macallimiinta aan haysano boqolkiiba meeqay ka yihiin gabdhaha waxaad ogtiin waxa la yiraahdaa gabar wax baratay waa ummad wax baratay Ustaad Xasan Shalno oo kamid ah bahda waxbarashada gobolka kuna hadlaya afka macallimiinta iyo maamulayaasha ka qayb galay kulanka wada tashiga farsamada waxbarashada gobolka ayaa tilmaamay in kulankan muddadii socday wax badan la isla qaada dhigay isla markaana soo dhaweeyay kulanka wada tashiga farsamada waxbarashada dawlad goboleedka Hirshabeelle kaas oo wax badan ka qaban doona caqabadaha waxbarasho ee ka jira deegaanada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle isla markaana u mahad celiyay dadaalada kala go'an lahayn wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee dawladda Hirshabeelle oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya ay ugu jiraan horumarinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed inta markii aan fiirino sidii loo naqaashay iyo sidii loo tanaawulay iyo emiska sidii looga hadlay iyo waxyaabihii kale la ansixiyay dhamaantood waxay ahaayeen guul weyn waxa kale in la xuso si gaar ah loo xuso mudan runtii oo qiimo badan ku leh in maaragtay wasiirka iyo agaasimaha guud labadaba ay maanta ugu farxad galiyeen in sanadka soo socda ardadu aysan u boqoli doonan Muqdisho dhanka shahaado doonashada oo ay qaadeen in uu shahaadada ardaga guddoonka waxbarashada labada region oo ka heli doona arday kastaba si dhib yar oo fudud taasna waxay ahayd runtii guul la taaban karo ayagana ugu mahad celinayna dadaalkaas ay sameeyeen sidoo kale goobta waxay nooga cadeeyeen in shahaadada dugsiga dhexena ayadna sidaas tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dare oo soo gabagabay kulankan wada tashiga ah ee farsamada waxbarashada dawlad goboleedka Hirshabeelle ee muddada 2 maalmood ka socday magaalada Beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay muddadii socday isagoo ballan qaaday in caqabad walba ee dhanka waxbarashada ah ay wasaaraddu ay xalin doonto iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya shirkeena 2 maalmood wixii ka soo baxay ayadoo qoraal la soo gaarsiin doona inputkii aad ku darsateen oo fikradaha kala duwan ahaa oo dhinaca kasta taabanaya dhinaca waxbarashada ah waxaan ka qaban karna waa ka qabanayna heer state wixii kalena federaalkan la kaasho doona wad ogtiin oo sanadkii wuxuu ahaa la ballan qaaday iskuulaadka publicada maaragtay in la badiyo ujeedkii waa la gaaray laakiin ujeedkii la gaaray waxa batay baahidii faraha badneed maadaama iskuulaadku aysan lacag qaadaynin public laga dhigay shirkan wuxuu ahaa shir noo muhiim ah oo muddadii hadda ka soo wareegtay ugu dambeeyay waxyaabo badan baa iska bedelay wax qabad fara badan la keenay qaarkood waxay la yimideen wax qabadkaas waxa ka dhashay mushkilada in la xalliyo u baahan waxaan kaloo aad iyo aad wasaaradda federaalka u mahad celinayaa arrintii daadijinta maamul goboleed ay naga ogolaadeen in shahaadadii dugsiga sare la daadijiyo qayb fiican bay ay ka qaateen stateska arrimahaas haddana sanadkan ardayda ka soo baxda waxay ku heli doonaan fadhigooda sidaan ku ballannay discussion badan baan ka galnay shaqaalihii ka shaqayn lahaa in la habeeyo annaguna mas'uuliyadana saaran baaristaas iyo nidaamkeeda howl baan kala qaadanay heer state iyo heer federaal heerka state qayb waxa ka ah maamulayaasha oo maanta hor fadhiya iyo dadka khibrada meeshan jooga in ardaygaasi maaragtay form 4 ka baxay nadaaminteeda iyo habkooda iyo sidii loo maamuli lahaa iyo
mas-uuliyaddeeda anagana saaran tahay taargetkooduna waxa waaye in arrimahaasi aan xoogga saarno dowladda federaalkana ay doorkeeda qaadato oo ah doorkii hogaamineed iyo baahidii meesha stateka wixii ka badan inay ayaguna maaragtay ay gacan ka geystaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse warbaahinta qaranka Beledweyne